السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا qiimaha badan ee ku xiran kanaalkan YouTube-ka Danjira Channel isku soo noqda wanaagsan article oo xiiso leh channelkan had iyo jeer wuxuu taagan yahay waxyaalaha bulshada markaa kor u qaadaya caafimaadkooda dhibaatooyinka iyo waxyaalaha ay kaga badbaadi lahaayeen halkan ayaan kula wadaagnaa wixii talooyina iyo tusaale aan hayno doonaya marka maanta xanuun dhibaato inagu haya ama bulshada dhibaato badan ku haya oo inagu soo kordhay oo dadkeena wax fikir ah ka haysan oo baryahan dambe dadku u jiifaan guryaha iyo isbitaalada wadamada deriska dhan sidaas lamida in dadkeena shaah aadka u kulul ama waxyaabaha kulul ay cabayaan oo dhuunta hadda kansarka ugu badan ay tahay oo keenaan inay yaraan sida mashaariic aad u kulul qof kor u kaco ama shaah tagayaan xanuunkaas loo yaqaan xanuunka kansarka oo dadka dhibaato badan ku hayo xanuun aad iyo aad u daran ah ilaahay baan ka magan galnay xanuunkaas ciduu hayana ilaahay uga sahlo waxaan doonaynaa xanuunkan sidii markaa looga hortagi lahaa waxyaalaha keena waxaan ka sameyn doonaa video dambe aan ka sameyn doonaa marka halka maanta waxaan ka hadlaynaa waxa weeye xanuunkan sidee looga hortagi karaa alwiqaayatu khayrun min alcilaaj daweynta waxaa ka wanaagsan ka hortaga walaalahan waxaan ka codsanaynaa video intuu soo gaaro inaad sii share garaysid walaalaha kala gaarsiin subscribe-ka iyo like-ta share-ta nagu caawisid markaasi walaalaha kale uga faa'iideystaan marka barnaamijkan iyo qodobadan halkan ku sheegi doono ayaguna marka uga faa'iideystaan oo xanuunka marka uga digtoonaadaan ilaahayna marka ma soo gaarsiiyo wixii islaam xanuunkan qodobka koobaad qofku inuu iska daayo sigaarka ka fogaado iyo tubaakada waxay keenaan xanuunka kansarka keenaan qofku hadduu iska daayo waa ka hortag wanaagsan xanuunkaas ma soo weerari doono biidinillah wuxuuna ku dhacaa qofka isticmaala sigaarka sababku kaga dhacaa afku kaga dhacaa dhuuntu kaga dhacaa xanjarada ay kaga dhacaa xanjarada ma garanay wax Soomaali lagu yiraahdo intaas uu ku dhaca oo waxa sababaya sigaarka ama tubaakada uu isticmaalayo qofkaas maadaama ay wax tahay mukhadaraadka xanuunka kansarka inuu yimaado ayay ku saacideysaan qodobka labaad qofku inuu nidaamka cuntadiisa hagaajiyo oo cunto saxiya u cuno ayaa aad iyo aad wanaagsan maxaa yeelay caafimaadkiisa ayay ka qayb qaadanaysaa xanuunka kansarka inuu ka hortagaysaa waxaan dadka uga digayaa cuntooyinka qasacadaysan sida beeniska iyo shiida ama tirtirka dadka qaarkood yaqaanaan inay iska ilaaliyaan maada ayaa ku jirta maadadana waxa loogu talagalay inay markaa ilaaliso oo daasada ka ilaaliso inay daxalaysato maadaama la falgalaysa in badanna way taala oo dukaamadeena waxay ogsoontihiin cidna ma eegto ina dhacday ina dhicin ina hagaagsantahay iyo cuntooyinka bakhaarada lagu kaydiyay dhibaatooyinka kuwaas keenaya qofku wuxuu cunay iyo wuxuu cabayo oo intaba iska hubiya maadaama ay jirin dawlad arrimahaas inaga hagaajinaysa dadka dabagelaysa cuntooyinka xumaaday iyo cuntooyinka dhacay keenaya dalka ku haya inagu shaqaysanaya oo meesha qooyinkood ka wata waa qolo ganacsatada marka qolada ganacsatada cidii la xisaabtami lahayd maadaama ay jirin qofka marka caafimaadkiisa inuu soo ka shaqeeyo ilaaliyo ayaa loo baahan yahay inuu isticmaalo waxyaalaha ugu wanaagsan waxaa ka mid ah ka hortagaya xanuunkan inuu qofku isticmaalo khudrawaadka iyo fawaakihda inuu isticmaalo oo tarkiiska saaro kuwaas ayaa u wanaagsan si caafimaadkiisa markaa ugu ilaashamo ilaahay wax ilaalin kare qofku inuu ka fogaadaa sida khamrida maadaama ilaahay xaaraantimeeyay ay xaaraan tahay dhibaato ayay keenaysaa qofka isticmaala xanuunka kansarka uu sahlanaanay inuu ku dhaco waxaa kaloo ka mid ah hilbaha ee lasoo warshadeeyey ee warshada lasoo geliyey sida kalluunkan haysano kale inuu qofku isticmaalo maaha kalluunka caadiga darayga aan garanayna ka inuu soo iibsado isticmaalo weeye kalluunka loo yaqaan tuunada qofku inuu ka fogaado weeye xanuunka kansarka waxyaalaha sahlaya ayuu ka mid yahay ee qofka u keenaya inuu markaa isticmaalo kalluunkaas markaa wiqaaya waxa ah inuu ka fogaado saddex qofku wasnigiisa inuu ilaaliyo wasnigiisa saxiyada inuu ilaaliyo uu sameeyo qofku mubaarasa ama riyaadiya uu sameeyo qofku jimicsi uu sameeyo joogtaa waxaa markaa uu qofkaas u sahlan yahay wasnigiisa culus kansarka sida ka ku dhaca naasaha ka ku dhaca qanjka loo yaqaano borostaataha ragga ka kaliyaha ku dhaca xanuunahaas dhan oo markaa xubnaha muhiimka oo dhan ay kaga dhici karaa qofka wasnigiisa culus yahay markaa waa in wasnigiisa ka dhigaa ka caadiga normalka loo baahan yahay inuu ka dheeraada waxyaalaha markaa u keenaya dhibaatada ee xanuunka u sahlaya wasnigiisa inuu riyaado sameeyo ayaa loo baahan yahay jirka wuxuu siiyaa qofku markuu jimicsado nashaad buu siiyaa iyo wuxuu siiyaa caafimaad ayuu siiyaa qofku intuu wax iska cuno iska fadhiisto lama baahna waa inuu qofku jimicsi sameeyaa socdaa diidaa markaa waxyaale wasaqda ay jirkiisa galay dib bay uga soo baxayaan dib bay uga soo noqonayaan qashin saar bay noqonayaan marka qofku waa inuu ku dadaalaa jimicsiga qodobka afraad qodob aad iyo aad u muhiim ah weeye waa qodob ka hadlaya qofka fayruusaadka keena kansarka inuu qofka digtoonaado marka maxaa kamid ah fayruusaadka keena kansarka waxaa kamid ah ka beerka ku dhaca ee loo yaqaano biida ayaa keena waxaa laga qaadi karaa fayruusaadka loo yaqaano biida ee beerka ku dhaca inuu qofku markaa irbada khaldan lagu mido inuu ijmaac sameeyo ijmaacoo kale
qof hadduu galmo sameeyo oo galmada laba laga yaabo labadii qof mid kamid a inuu qabo markaa xanuunkaas si fudud ayuu qaadi karaa. xanuunka kansarkana wuu usii sahli karaa oo hadhow beerkii markuu ku dhaco xanuunka biida loo yaqaano xanuunkii kansarka ayaa u sahlanaanaya inuu isagana ku dhaco, saasuu markaa qofku noqon doonaa beerkiisa howlgab. marka qofku inuu markaa sameeyo oo iska tallaalo beer xanuunka, inuu iska tallaalo ka digtoonaado ayaa loo baahan yahay. way fududahay, magaaladeena waa yaalaa, dalka Soomaaliya waa yaalaa, tallaalkii beer xanuunka waa yaalaa. qofku waa inuu ku dadaalaa oo tallaalka beer xanuunka qaataa. waa inuu iska ilaaliyaa inuu markaa ijmaac samayn. hadduu qofku gabadh guursanayo waa inay iska baadhaa oo ninku isbaadhaa si markaa xanuunada ijmaaca lagu gudbiyo ama galmada lagu gudbiyo si markaa aynugu dhicin. waa inuu qofku hadhowna xanuunka kansarka ku sahlanaan qofku inuu si fudud ugu dhaco. waxaa kaloo kamid ah inuu qofku iska ilaaliyo waxaan loo yaqaano goldhabka ay isticmaalaan dadka qaarkood, inkastoona wanaagsaneen. goldhabkaasna wuxuu keenaa xanuun kansarka inuu ku dhaco qofku, oo qofku inuu ka digtoonaadaa inuun isticmaalin waxyaalahaas aan caafimaadka u wanaagsanayn. taa lafteeduna way keeni kartaa xanuunka kansarka inuu ku dhaco. inta ayaan kusoo afmeeri doonaa. waxaan idinka tegaynaa fi amaanillaah. intaa kulmi doona video kan lamid.